السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا cunto caafimaad saaka waxaan la wadaagayaa snack yar oo carruurta aan u sameeyay aad iyo aad u fudud waana ka heli doontaan waxyaalihii aan ku daray iyo sida aan u diyaariyayna waad la arki doontaan. snackan waxaan u sameeyay sida banana breadka laakiin se moos kuma darin. waxyaalihii aan ku darsaday waxaa ka mid ah walnuts hal koob camal ay igu jira saxankaas oo waxaan rabaa ovenka inaan geliyo xoogaa aan soo kululay insha Allah. waxaan kaloo ku darsanayaa cabitaankeeni tufaaxi iyo sanjabiishi aan soo geliyay wixii ka soo haray frinjeerka igu jireen ma daadinin marka saaka aan helay way aan isticmaalo oo rootiga aan ku darsanayaa. marka haddii aad ka taxadarto inaadan cunto daadinin waad helaysaa si aad u isticmaasho marka cunto yaan la daadinin. haddii aadan isticmaalaynin markaas weel nadiif oo asturan ku rid insha Allah. hadda walnutska way soo kululaadeen xoogaa golden brown oo soo noqday wuuna kulul yahay marka intuu kulul yahay qaadadaasan ku soo burburinayaa inaan shiido budo ka dhigana ma doonaayo laakiin se wax yar oo waxaan ka soo dhiganayaa size yar aan soo burburinayaa. marka hadda isku darsanayaa wixii hore diyaar waaye laba koob burka cadaha igu jira baaquligaas waxaan ku darsaday qaadada yartoo cusbo ah iyo qaadada yartoo baking soda ah. qaadada cuntada qaadada weyn oo cinnamon ah marka intaas isku qasay si fiican waa intii qalalneed oo marka gees aan u dhiganayaa. baaquli kale aan soo qaatay waxaan ku darsanayaa waxaan ku soo shubtay koob sokor ah iyo 2 xabo kuna. snackana aad u fudud yahay ruux kastaana sameyn kara. marka si fiican aan u qasayaa sokortii iyo kunta si fiican isugu soo qasaa intaan ku daran wax kale. saliidii baan ku soo darsaday aniga saliidda isticmaalay waa olive oil saliidii ku taala isticmaali kartaa saliid gooni oo ma lahan also butter ku darsan kartaa. waxaan ku soo daray koobka halfkiisa oo plain yogurt ah. waxaan ku soo darsanayaa tufaaxi iyo sanjabiishi marka haddii aadan cunto daadin run ahaantii waad helaysaa si aad u isticmaasho. waxaa kaloo u isticmaali kartaa haddii aad weelal yar ku rido oo frinjeerka qaybta freezerka aad geliso carruurta waxay u isticmaali karaan jalaato camal ama popsicle. marka ha la iska ilaaliyo in wax la daadiyo. waxaan kusoo darsaday burkii iyo walnuts hal mar aan ku darsaday marka si fiican aan isku qasayaayo xoogna ma isticmaalayo marka tartiib ilaa iyo burka cad intuu ka dhamaanayo burka oo si fiican isaga dhexgalayaan ayaan rabaa inaan qaso. ovenkayga wuu ii daaran yahay 350 insha Allah. waxaan beegareyn doonaa 25 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo. dhaladaasaan ovenka ku gashanayaa dhaladaasaan soo diyaarsaday. hadda marka ovenkaan gelinayaa sida ku soo baxana waan idinla socodsiinaa waan intusaaya insha Allah. hadda markii uu halkii 30 daqiiqo markay ii dhamaatay waxaan sugay hal saac oo ilaa uu qaboobo intuu kulula ma jarin marka ma sha Allah si fiican ku soo baxay. haddii aad weligaa dhadhamisay ama aad samaysay maxaa la jiray banana bread texture-ka waa isku mid
laakiin se dhadhanka waa different oo kana kasii fiican. waxaad ka dhadhaminaysaa appleski, gingerkii iyo cinnamonkii aad u fiican yahay. isku daya oo tijaabiya. runaanta cunto fiican ka soo baxday, aad iyo aad u fiican yahay. waa cunto oo hore ku waqti dheer ku sitaali karta oo hore aad samaysto furnijerkaasi ka shan kartaa. marka aad ay carruurta uga heleen. idinkana waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaan oo aad tijaabisaan. cunto aan daadan lahaa baan ka sameeyay run ahaantii. marka maasha allah si fiican uu igu soo baxay. haddii aad ka hesheen fiidiyowgan walaalaha kale la sheer gareeya. subscribe-kana hanaga iloobina iyo like-ta. waa ku mahadsantihiin daawashadiina. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.